gacalo hooyoy gacalo goobta idinka ay dhigee markuu guur ii ekaa waa tahay galaaftee gacalo hooyoy gacalo laba goor dhintee godkii eelkii gurida qisada heestaani waa heys maalmahan dambe baraha bulshada aad u qabsatay waxaad isweydiinaysaa maxay tahay qisada ku duugan heystan waa heys dareen iyo murug intaba xambaarsan waa heys ay markaasi ku muujinaysaa gabar dhibaatooyin fara badan loo geystay heystani waxaa qaaday fanaanada reer Djibouti Aamina Gacanla waxay ka hadlaysaa hooyo inanteeda la jeclaatay nin lacag leh oo ay qasab kaga dhigtay inay raacdo iyadoo aan tixgelin siinin dooqa iyo rabitaanka inanteeda sida heeska ku xusan inantu waxa ay jecleed wiil gayaankeeda oo xiriir jacayl kala dhaxeeyay taas bedelkeed hooyadeed iyo reerkeedu ma aysan rabin laakiin waxa ay jeclaayeen inay raacdo nin kale oo ayaga u dooreen waxa dhacday wiilkii inanta ay jeclaayeen ayaa waxa uu ka soo jeeday qoys danyar ah oo reerkooda waxba aanan haysanin halka inanta qoyskeedu uu ahaa reer ladan inantii wiilkii waa loo diiday waxa dhacday gabadhii in guriga lagu xiraa nin ilaaliye ahna loo sameeyaa hase ahaatee nasiib xumo inantii waxa ay kale isku noqdeen ninkii ilaaliyaha ahaa waxayna dantu ku kaliftay inay isaga la xaasho si ay xabsi guriga ugu baxdo wiilkii ay jecleednaay uu tagto ninkii ilaalinayay waxa uu sharuud uga dhigay si uu u deeyo haddii ay samayso waxa uu isaga doonayaa oo ah damicii rag lagu yaqiin waxa uu rabay markii ay samaysay uur sharci daraaha ayaa isla markii yimid gabarnimadeediina waa uu ku ciyaaray inantii markaa labadii dhanba waa ay seegtay inanta marka waxa aad oo dhan ay dusha ka saaraysaa hooyadeed waxayna ku soo gunaanudaysaa heesta goobta adinka ay dhigay markuu guur ii ekaa waa tahay galaaftee gacalo hooyoy gacalo laba goor dhintee god iyo eelka igu rida geeridu waa loo dhashaa gudnimo waa lagu dhintaa gaf waa kii laga dhintee goobta adinka ay dhigee gacalo hooyoy gacalo